نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم. ولعت $700 oo masaajidka loogu soo deeqay baanu haddeed ku wareejinay imaamkii iyo gudoomiyihii masaajidka tabarucaadkiisa qaabilsanaa ururinteeda waxaanu leenahay dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan inay ka soo qayb qaataan masaajidka maanta 2 mitir maraya waliba waxaan dadka deegaankan way ku yar adag tahay waxay ugu adag tahay waxa weeye abaar dheerna way soo martay xoolihiina iib male meel wax la dhigto masaajid ka khayr badanina ma jirto waxa la wixii muslimiina oo ay warbixintayadaas u gaadho waxaanu ka codsanaynaa ilaahay baa wax ka khayr badan ugu bedelayay inay si degdeg noogu soo jawaabaan ما شاء الله. اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم. lacagtaasu waa $700 هاي ساوي ساوي waxaa la soo baxday gabadha yiraahdo Maryama Ismaaciil Jaamac waxay ugu soo deeqday masaajidkan la fulinay baahidiisa loo gudbiyay waxa jira waxaan codsanaynaa in loo soo duceeyo aniga iyo waalidiintiiba in wixii xanuunana hayana Allah naga dulqaado jannada firdawsana ilaahay noogu deeqo waxaynu oranaynaa ilaahay jannada firdawsana haydu ku deeqo amiin wixii aad tabanaysaa inay bugtay iyo wax kalena Allah subhanahu wa ta'ala haydu ka dulqaado amiin lacagtanuna waxay ahayd laba qaybood bay ahayd guud ahaan markii hore 1,000 bay ahayd 300 waxaa lahaa ceelka masaajidka xudun ku yaala lacagtuna way kala socotay 500 anaa la igu soo qoray 500 samsam ismaan faarax baa lagu soo qoray marka waanu isu keenay hadda waa naga wareejinayna qaybta masaajidka la fulinay bismillaahi raxmaani raxiim lacag $700 dhan baanu kala wareegnay aadan cilmi dheere oo loo soo diray masaajidka la fulinay oo ay ugu soo deeqday Maryama Ismaaciil Jaamac iyadii waalidkeedba wuu ducaynaynaa ilaahay meel roon inuu geliyo waayo meel roon oo masaajidka wanaagsan ma jiro waa wax dee ilaahay waqti qaadun ku dhamaanaya soconaya marka lacagta waan loo wareegnay waxaanu rabnaa masaajidka idin muuqday qabiyada inaanu wax ka qabano oo ugu dhamaystiro intii ay gaari karto aanu ku dhamaystiro haddii aan lahaydno waanu gudoominay lacagta waa ka baxay بسم الله الرحمن الرحيم الشيء قالت الدمية لعبت بعد كسين إني أذكر كسين لو ريتشيي دتكنا نختار وحي هو الهر على ربع نختار كاسعة نختار كلمة شرو صدقات عادنا بحديد بالدواء حولنا واضح ركتان هي لفوين وود داري وحولا دقته انت ايغا غارسيي oo neef xariye iyo meel wax ka wariyeenba iyaga halka gaarsiiyay waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee hor leh xula baxayo masaajidka waa daaweyn waa halkaas labada mitir buu joogaa oo waliba dadka deegaanka ay qusayso wali waxaad ku dirtaa qalabkan waxa laga keenay laascad qalabkan wali la sadar dad muslimiin Allah soo qalabka ka soo ururiyay qalabku wadin qalabku wadin yahay baasho ninka guddigu leeyahay ninkii wax ku darsanayo habada sibirka waa sadaqo ودي فرض تامن مرة لما سلنا وحدي دي هول بدن بعددو عقدك بهال كانوا بهان تادو جدار كان دير إذن مقدين لدميو بهاي يايو إن العديو مساجد كده العديو بيت إلى هيدو عد الله موتيو هو بهاي
marka hawlaha faraha badan baa hadhado oo wax ka qabad baan cidii kasto wax ku darsanaysa ee hor ilaahay geysanaysa mid waalidkii loo baxayay iyo mid isagoo loo baxayaba mid walba uu baahan yahay حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون